Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada kanaalka Cilmi Baaris. Muuqaalkeenan maanta waxaan ku eegaynaa warbixin ku saabsan dalka Tanzania. Dalka ay ku taalo buurta ugu dheer qaaradda Afrika. dalka Tanzania waa dal cageeska bari ee qaaradda Afrika wuxuuna ka mid yahay dalka ku teedsan mandiqada leh harooyinka waaweyn ee caanka ah ee qaaradani Afrika. Dalkan Tanzania waa wadanka 31aad ee ugu baaxadda weyn dunida, sidoo kale waa ka 13aad guud ahaan qaaradda Afrika. Tanzania waa dal xeeb aad u dheer iyo harooyin badan oo gudaha ah. Masaafada uu ku fadhiyo waa in ka badan 947,000 oo kiiloomitir, wuxuuna ka wen yahay isku darka dalalka Germany, UK, Netherlands iyo Italy. Wadankan Tanzania wuxuu la wadaagtaa 8 dal oo qaaradda Afrika ah, kuwaas oo kala ah Uganda, Kenya, Malawi, Zambia, Rwanda, Burundi, DRC Congo iyo dalka Mozambique. Dalalkaas dhammaantood waa kuwa caan ku ah harooyin waaweyn oo u dhaxeeya. Tirada dadka wadanka ku nool waa 59 milyan oo qof. Magaalada ugu weyn waa magaalada Dar es Salaam oo ah xarunta dhaqanka iyo dhaqaalaha dalka. Waana magaalo xeebeed aad u qurxoon. Caasimadda wadanka ama meesha looga arriminayo waa magaalada Dodoma. Tanzania waa dal ay ku nool yihiin qowmiyado kala duwan oo aad u badan, waxaana looga hadlaa dalkan in ka badan 100 luqadood. waana dalka ugu luqadaha badan wadamada dhaca bariga Afrika. Wadankan ma lahan luqad rasmi ama luqad official ah, balse luqadda qaranka ama tan ugu balaaran dalka waa luqadda Swahiliga, halka Englishku yahay luqadda labaad ee dalka. Wadankan Tanzania waa mid la dalxiis aad u heer sareeya, kaas oo 17% ka ah dhaqaalaha dalka. waana dal ay ku nool yihiin noocyo xayawaan ah oo aad u kala gedisan. Sidoo kale dalka waxaa ku taala buurta ugu dheer qaaradda Afrika, waana buurta loo yaqaano Kilimanjaro. dalkan waxaa mara harooyin badan, waxaana ka mid ah harada ugu weyn qaaradda Afrika ee Victoria. Sidoo kale waxaa mara harada ugu gunta dheer qaaradda Afrika, ahna tan labaad dunida oo dhan, waana harada Tanganyika. nidaam ahaan dalkani waa jamhuuriyad baarlamaani ah oo madaxweynuhu awoodda sare leeyahay. Madaxweynaha haatan talada dalka haya ee Tanzania waa Samia Suluhu Hassan, taas oo xilka la wareegtay kadib dhimashadii madaxweynihii hore ee dalka John Magufuli. dhaqaalaha dalku waa 59 bilyan oo dollar, waana mid fiican marka loo eego wadamada qaaradda Afrika. dhanka kale diimaha laga haysto dalka waa kuwa aad u badan, waxaana ugu balaaran Kristanka oo ka ah 60%, halka Islaamku yahay 35%. asal ahaan magaca wadanka ee Tanzania wuxuu ka imaaday midowgii Tanganyika oo ah dhulka gudaha ee dalka, kaas oo ah inta ugu balaaran iyo labada jasiiradood ee Zanzibar. haddii aad danayso muuqaalada noocan oo kala ah, fadlan ku soo biir kanaalkan Cilmi Baaris oo taabo calaamadda subscribe-ta si aad ula socotid muuqaalada kale ee aan soo geli doono. waad ku mahadsantahay daawashadaada.